diyaarad siday ururkii toddobaad ee ciidanka kumaandooska Gor-gor ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo dalka Turkiga tababar ugu maqnaa ayaa soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta ciidamada cirka ee Afisyooni. ciidankan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu horkacayo wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya حسن حسين حاجي تليها عيداً كرولك إحوج دلك الصوماليات محمد تهليل بيح شرف الأرواح يسرى كل كتسن عيداً كحوج دلك يقوى ودن كتركيا.